بسم الله الرحمن الرحيم. سو دواada koorsaydeeni computer application gaar ahaan MS Word 2010 videogan waxaan uga hadli doonaa insha Allah sidee loo saxaa loona doortaa qoraalada lagu qoro documentiga sidee loo saxaa loona doortaa auto correct and select text. tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa qoraalkeeni ahaa practice qoraalkan qoraal inta badan wordka iskaga save gareysan oo loogu talagalay in wax lagu practiceeyo. soo qoraalkan rabaa inaad doorto. soo doorashadu waxay u qaybsanaysaa ilaa 3 qaybood. inaad dooranaysid hal word hal eray iyo inaad dooranaysid paragraph ama sentence. haddii aad rabtid inaad dooratid one word waxaad dhigi kartaa ku furan double click inaad dhahaysid hal word rabtaa click double click blocks double click document double click. diyaar documentiga dhan inaad doorto aan iraahday haddii aad rabo inaad doorto waxa loo yaqaano paragraph clicks waxa leeyahay triple click oo boobsiisa kadib waxaad dooranay one paragraph. waxaa kaloo sameyn karaa clickta inta qabto yaa kusoo jiidi karaa ilaa meesha rabo yaa keeni karaa waa another selection. haddii aad rabo inaad doorto dhammaan maxaa la yiraahdaa page-ka ama whole documentiga meesha aad inaad kasoo bilowdid click qabanaysa kadib ku soo jiidaysa ama si fudud waxaad isticmaalaysaa control A isticmaalaysa waa inaad dhahdo control A hal mar iyo all wada dooranaya kaas waxaa loo yaqaanaa selection qaabka loo dooranayo inaad ku soo jiidid inaad double click dhahdo waa aad rabtid haddii aad rabtid one paragraph inaad dhahdo triple click inaad dhahdo. soo waxaan ku xijinaynaa marka haddii ereygan uu ka khaldamo wordkan qaabkee loo saxaa. soo habo badan baa loo sixi karaa. tusaale ahaan ereygan janji yaa ka tegaynaa int. soo sheegan inuu khaldan yahay in kale waxaa ku ogaanaysaa inta badan waa English oriented wordka. soo wuxuu ku ogolaanaa wuxuu ku sheegaa calaamad hoos guduud ee taasoo muujinayso in sheegan uu khaldan yahay. soo labaha baa loo sixi karaa. sheegan inaad dooratid sheegan oo dhexdeena click aad siisid kadib aad tagtid tabka loo yaqaano review kadib aad ka dooratid spelling iyo grammar. dan halkan wuxuu ku ogolaanaa marka ereygii khaldanaayo halkan kaaga soo saari kadibna inta choice ee ereygaas lagu bedeli karo iyo ku soo qiyaasa. ereygan check oo qoran tahay waxaad ka wadaa change may waxa uu qori rabtay charge may cake may chef iyo chef. soo ereyga aad rabtid change oo kala rabnaa anaga change aad dooranaysaa change ala kudaya the spelling and grammar check is complete. so ereyga change oo saxmi oo option koowaad inaad sheegi dooratid inaad dooratid kadib review aad tagtid kadib aad dhahdid spelling grammar dan choice ka adiga aad taqaan choice kan aad rabtid aad soo dooratid waxa loo yaqaanaa inaad dooratid inaad tabkaas ka soo bixisid. an other option oo aad haysato waxaa kamid ah tusaale ahaan hadda ida ka tir inta ka tir inaad sheegi intaad dul tagtid aad right click dulaas dan halkan oo kaaga soo muuqdo wixii aad rabtid inaad ku bedelo. ereygan waxaa soo dhaweyn karo wax kaa khaldan janji yaa ka wadi kartaa janji charge cake chef hadba midka aad rabtid marka yaa ku bedelinaysa dan oo saxmaya. soo halkaas ayay nooga egtahay sidee qoraal loo doortaa oo aan kusoo sheegnay inaan one word haddii aan rabno inaan doorano aan dhahno double click haddii aan rabno inaan doorano paragraph inaan dhahno triple click. haddii waxaa kaloo dooran karnaa inaan muuska intaan qabano dhanka midig bidix aan kusoo jiidno ilaa meesha aan rabno waa choice kale. documenti oo dhan haddii aan rabno inaan doorno waxaan isticmaalaynaa control A isticmaalaynaa ama waxaan isticmaali karnaa home intaad dhahid select all labada waa dhigi kartaa home tab inaad tagtid select aad dooratid select all ama control oo shortcutkaas inaad iska isticmaashid. qaabka wax loo saxayane labaha baa loo sixi karaa in shayga korkiisa right click ku dulaadi dan halkan ay kaaga soo baxdo inta choice lagu bedeli karo iyo inaad tagtid tabka loo yaqaano review dan spelling and grammar dan halkan oo kaaga soo baxo optionski lagu bedeli lahaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.